dadka isticmaala trust wallet-ka waxa ku soo korortay qatar weyn kadib markii lacag ka badan 7 milyan laga hagriyay trust wallet talaabooyinka ay qaadi karaan waxyaabaha ay sameyn karaan iyo sida isku badbaadin karaan waxaan ka wareysanaynaa Cumar Cali Cumar Yalaxow oo ah maamulaha oo Maya oo warbixintaas asoo si fiican ula socday waa maasan tahay Firdawso trust wallet-ka problemka ku yimid waxa weeyaan dad badan waxa jira isticmaala trust wallet-ka Chrome extension waxa loo intay programka browser-ka oo computer-ka intay tagaan ku install gareeyaan trust wallet marka taas ayaa waxa jirta nin loo maleynayo inuu kamid yahay dadka developers-ka ee ka shaqeeya shirkadda ama hay'adda maamusha trust wallet oo ah hay'adda ay leedahay ama shirkadda ay leedahay Binance hadda ayaa wuxuu sameeyay code-ka wuxuu ku daray wax loo yaqaan backdoor amaba yani code-ka wuxuu ku daray API loogu talagalay dhammaan dadkaas isticmaalaya Google Chrome-ka markuu automatically update gareeyo sababta Google Chrome extension-ka automatically update u noqdaa marka wuxuu sameynayaa wuxuu copy gareysanayaa waxa loo yaqaan recovery phrase-ka 12 xuruuf recovery phrase-ka la isticmaalo oo trust wallet-ka taas uu copy gareysanayaa then markaas waxa la mid alla wixii lacag ku jirto la baxaya marka waxay ugu talagaleen adigu 8 bishii December ay bilaabeen qorshahaas 22kii ayay hawada soo geliyeen marka waxay ugu talagaleen 25 ilaa 26 oo dadku ay kala mashquulsan yihiin Europe iyo wadamada adduunka badan ay u dabaaldegayaan Christmas-ka oo ay fasax yihiin dadkuna laga yaabo in telefoonada aysan isticmaaleen ama kombiyuutarada in lacagooda lala baxo marka waa laga war helay Binance isla markii waxay sameysay update oo ay ka saareyso maaragtay backdoor-kaas version-ka backdoor-kaas waxa weeyaan waa 2.68 hadda Binance waxay soo update ay ku sameysay waa 2.69 marka haddii aad isticmaali jirto trust wallet Chrome extension-ka aad isticmaali jirtay oo computer-ka ku dhex isticmaalaysay dadkaas waa dadku aad u saameeyo marka fadlan qaabka uga bixi kartid waxay tahay in aad sameysato trust wallet cusub recovery phrase cusub aad sameysato oo dhammaan waxaagii aad u soo wareegsato midka cusub taas waa talo sababtoo ah moogid backdoor-kaas inuu maaragtay recovery phrase-kaaga uu ka xaday marka haddii aad lacag badan ka soo qaad bay kugu jirto isticmaalaysay lacagtaas way saasi kaaga maaragtay lagaaga xadaya marka qaabka kaliya looga badbaadi karo waa saas qoladan trust wallet ayaga waxay kale ku leeyihiin update na samey adoon furin extension-ka adoon furin update samey sababtoo waxay ka baqayaan inuu maaragtay still uu backdoor-kaas uu ka xado recovery phrase-ka marka taasaan tala ahaan ugu soo jeedinayo dadka sida kaliya isku ilaali karaan inay sameeyaan haddii lacagta ay already ugu jirto trust wallet-kooda inay recovery phrase cusub sameystaan mobilka kale ku sameystaan kan mobilka wax dhibaato ma lahan sida hadda la ogyahay inay ka bacdi u wareejiyaan dhammaan waxa la wixii coins ay haysteen midkaas cusub inay u wareejiyaan intaasaan kula dardaarmaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.